kani waa nuur maxamed faarax dheer ee sargaal ka tirsan ciidamadii xoogga dalka ee Soomaaliya. assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. khiyaarta Soomaaliyeed meel kasta oo aad dunida iyo caalamkaba ka joogtaan, waxaan maantay la kulmay sargaal sare oo ka tirsan ciidamadii xoogga dalka ee Soomaaliya ee ka dagaalamay gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya ama waxa meesha loo yaqaan Somaliland. maantay duriyada Sheekh Isxaaq iyo qabiilooyinka Soomaaliyeed ee halkaas degan ee ku midoobay Somaliland. nuur maxamed faarax dheere waa sargaal Soomaaliyeed oo u dhashay beesha Mareexaan. isbarashadu ma xuma, yacni inuu ooyo ayaan ka baqay maantay markuu iiga sheekeeyey gobnimada, geesinimada, halyeeyinimada, daacadnimada iyo wadaniyiinta xalaasha ee Soomaaliya inay yihiin isaaq. wallaahi alladii laa ilaaha ghayruhu, yacni waa kan hor fadhiya, yacni Soomaalida xalaasha ah ee gobta ah, wadani, halyeey, geesi, dal jacayl, diin jacayl, isaaq bay soo aroortay. soo dhawow maxamed nuur maxamed faarax dheer, soo dhawow walaalkay, soo dhawow. Soomaali oo dhan baa ku daawanaysa, boqolaal kun baadisa ku dhaweyn ayaa ku daawanaysa. soo dhawow horta marka hore. waa mahadsantahay, waa dhowahay saaxiib. noogu celi magacaaga. marka horeysa aan ku toosiyey, magacaygu waa nuur faarax dheere. nuur faarax dheere, ahlan wasahlan. ma ahay nuur maxamed baahi. maxamed walaaladahay ma jeclahay. si fiican. generaalkii gacmo gooye. okay, soo dhawow. waxaad i weydiisay waqooyi xaaladeeda iyo waktigii anigu aan ka oo hadda loo yaqaan hadda loo yaqaano Somaliland. aan ku saxiixaa bay yihiin, weligood bay ahaayeen Somaliland. hay Soomaaliya ay ku guda jireen, laakiin Somaliland weligood ay ahaayeen. waa gartay, gobonimadana waa ku qaateen. waa gartay. laakiin iyagaa wadaniyad jacayl iyo Soomaali jacayl darteed Soomaaliya ugu soo biiray. adigu waxaad ka dagaalantay 77. anigu waqooyi baan wax badan ka shaqeeyey. dagaalkii 77na waa waxaan rabaa marka inaan runta sheego. beenuna wax ma tarto, xaqiraaduna waa waxa dadka kala fogeeya, waxa dadka isu soo dhaweeya ma aha. waa gartay. Soomaaliya 18 dagaalkii sibay u gashay. waa gartay. sida Somaliland u gashay siiba beesha isaaq sida ay u gashay, cid u gashay ma jirto. haye waxay ahaayeen markii dagaaladu dhaceen ee dhaawacyada la keenay, gabdhahooda cilaanka marsan oo inamaha ah kuwii askarta xaarkeeda gacanaha u dhigayay bay ahaayeen. haye waxay ahaayeen kuwii 300 oo sabaax oo iyagu ay leeyihiin oo jeebkooda oo ay taayirka ayagu ku xireen oo shidaalka ku shubeen oo matoorka saareen oo aan cid ka kaalmaynaysan jirin, iyo wiilashoodii oo iyagu mushaarka darwaliinta siinaya ninkii kuwii furinta geeyay ahaa. ma 300 oo gaari oo sabaax ayaa beesha isaaq ay keentay? been ku sheegi maayo, dhageyso, dadkoo dhan oo wada ogyahay. waxay ahaayeen markii furinta laga soo noqday oo inta la soo noqdo noo dambeysay. adigu raggii hogaamiyaalka ayaa meeqa ciidan baad kula socotay xilligaas markaas? 160 nin oo isla beeshaas oo ciidankii laga keenay danwadaagaha oo Hargeysa duleedkeeda la soo dejiyey ninkii ka kaxaystay baan ahay oo furinta la galay. kulligood isaaq socon bay ahayd. kulligoodna reerka hal nin baa ku jiray oo majeerteena iyo aniga oo Mareexaan, nin kale ku jiray ma jirin, inta kale isaaq way ahayd. dagaalkii ugu weynaa wuxuu ka dhacay meelahaas aad gasheen baa la yidhi. dhageyso, ilaa iyo intii dagaalku ka socday buu ka socday. xaggee gasheen markay xaggee gaarteen? waxaanu gaarnay Qolaji meel la yiraahaanu ka soo noqonay aniga ciidankaas. xaggee ku taala? ilaa iyo 70 dagaal oo midba meel yaana waa galay. waxba xaggee maya Qallaj xaggee ku taala? ma jigsigay ka shaysa ma ka harar qarkeeda weeye. intaas adiga iyo raggaas isaaq baa jibaaxay. waa wada soconay. ha ahaatee anigu oo taliyahoodii ah waxaan ku dhaaranaya habeenkii markaan seexdo 3 raac bay isku kay wareejin jireen si aniga malakumoodiga ilaalinayo. isku nafna waana, isku ragna waana. kalsoonida ay igu qabeen iyo taan ku qabay iyo taan hadda ku qabaana waa isku mid. waxaan rabaa inaan marka sheego xaqiiqada. markii furinta laga soo noqday waxaa tiri 300 oo sabaax baa tiri ayagu ay leeyihiin oo dawlad ay lahayn. aan dawladu lahayn baa dagaalka lagu galay. matooro, taayiro, inta ayagu darawaladana lacagta ayay bixinayeen, gaaskana ayay bixinayeen, gaashidaalkana bixinay. yaa dagaalka lagu xoolaha la cunayana ayaga keenayeen. isaaq gobol Soomaaliyeed oo sawd ah oo sameeyay intaas hadduu jiro hala sheego, dadku way wada ogyahay. marka 77 dagaalka meesha maxaara ka lagu jabshay gobolada waqooyi dhinaceeda ahayd oo gadaal baa laga soo galay. meesha ku jabtay oo halkaas ahayd. okay, dhaawicii waxaa tiri gabdhaha isaaq oo 20 jirka oo xinniga gacmaha ku leh
askar saxaarkeeda dhaawacay gurayeen baan ku idhi oodkacay u jarayeen oo dharkay ka dhaqayeen oo way dul fadhiyeen oo 24 saac raacraac bay isugu bedeli jireen gobolka sameeyey waa kee Soomaaliya way istaqaanaa xaqiiqada aan ka hadalno yaan la isxaqirin kow markii la soo noqday hadalkayga ma ii deynaysaa haye adaan rabaa inaad war maya adigu noo sheeg ii daa hadalka haye marka waqooyi la soo qaado waan dhidida inaan dhididi ma arag ha wallaahi waa dhididi billaah waxaan runta sheegayaa Somaliland markii la soo laabtay ha oo ciidamadu furinta soo galeen ayagoo soo jabay sax isaaq barkadaha xoolahoodii way ka onsheen markaasay ciidan kasta oo meel degay waxay u geeyeen intaasoo 100 oo neef oo ariya iyo barkad biya ayaguna waa ka qadeen ayaguna waa ka qadeen kow odayaasha degmooyinka maxaa tiri degmooyinkee waxaan ku idhi odayaasha nabadoonnada ayaa saa u wareegaysanayay ciidan walba u tagayay war maxaa u baahantihiin markaasaa mid xoolo keena iyo mid geel keena iyo mid biya barkadiisii xoolihiisii inta ka onsho ciidanka ku wareegtay ayay ahaayeen waxaa kaloo soo gaartay ciidamadii soo jabay inay inta gabdha u dhiseen ay dejiyeen ma taasuu nin iyo dooqiisay ahayd iska daayay waa gar ayagu gabdha gooniya iyo niman gooniya ma samayna dhegayso nin walba dooqiisa iyo guurkiisay ahayd sax waxaan rabaa marka Soomaali inaan u sheego waa gar ninku wixii lagu falay ma iloobo Somaliland wixii ay dagaalkii Soomaaliyeed ka gashay abaalkeedii ma helin xanaaqa iyo goosashada iyo caradana wixii lagu sameeyaa ka keenay Soomaali nacayb kama ahayn maxaa lagu sameeyey wixii lagu sameeyey waxay ahayd hay wixii waqooyi ka dhacay qof walba ogew aniga waxba hay weydiinin adiga ilaa hadlaya og ninka waxa gaarsiiyey xadkaas waa wuxuu tabanayo lagu sameeyay sawd waxaan leeyahay marka Soomaaliland waa goosanaysaayay Soomaaliland shir baa loo qabanayay inta la leeyahay Soomaaliland xurma deeqda wixii lagu sameeyay oo laga xaal mariyo deeqda madaxweynaha waxaan leeyahay cusub ee maanta wadanka jooga ra'iisul wasaaraha cusub waxaan leeyahay ra'iisul baarlamaanka waxaan leeyahay wixii macnalo oo wax garanaya waxaan leeyahay Soomaaliland xurmay mudan tahay hal la xurmeeyo hal la xaal mariyo hal loo tago hal la dul fariisto hal lagu dul ooyo waxay mudan yihiin hal la marsiyo Soomaaliland Soomaali ma nabca laakiin waxa loo geystay ayay ka samri waayeen oo aan garawsho lahayn waana mahadsantiin waxaan ku leeyahay ciidamadii soo jabay aad baad maasantahay talaada madaxweynuhu waa dhegaystaa toos buu ugu xiran yahay khadka kan iyo baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo ra'iisul wasaaruhu aad bay ku dhegaysanayaan waxaan ku leeyahay sharafta iyo gobnimada iyo geesinimada iyo abwaannimada iyo halyeynimada ammaan baad isaaq kala dhacday Soomaalida xalaasha ee nasabka ee geesiga ilaa haddana Soomaali ooyahay weeyaan oo marka Siilaan iyo maalin dhawta uu khudbaynayo wuxuu lahaa